Assalaamu calaykum walaalahayga qaaliga soo dhawaad waa walaashiina Shaadiye Qurux oo idin sida muuqaal cusub maantana muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay rootiga baana oolyaha insha Allah waan isla arkaynaa sida aan u sameey doono halkan waxaan ku soo diyaarsaday burkii caadiga ahaa oo guriga aan ka isticmaalayay 2 koob iyo bar insha Allah meeshan koobkan waxa igu jiro caano qanda caanaha bowdarka waxaan ku darsan doonaa 2 xabo ukun labada xabo ukun aan ku darsan doono qayb ka mid ah shahriga ayaan ka reebanaa iyo leebata aan isticmaalaa mise qamiiriso faxiiso yeesti ninba siduu u yaqaano hadda waxaan ku darsanaa insha Allah war ma fiican tira badan ukuntii ayaan hal xabo ku soo darsaday waad u jeedin Soomaa ukuntii qaybta kale oo cadaanka halka kaleeto ku darsanaa sababtoo waxaan rabaa shahriga hodhow inaan korka mariya rootiga aan rabaa raali ahaada waad u jeedin sidaan oga ilaasanayo baaquli yar ayaan ku shubanaa shahriga baaquligan yarka ayaan ku shubtay insha Allah waxaan ku dari doonaa hadeertaana qamiirisadii mise leebatadii faxiisadii ninba siduu u yaqaano 2 qaando oo waxaan ku daraa leebato mise qamiiriso si oo aniga 2 qaando isticmaala adiga waxaad rabto waad isticmaali kartaa xur ayaad u tahay insha Allah qaabka la iskugu daraa inaan isla aragna ayaa fiican 3 qaando oo sokor sokorta caadiga oo 3 qaandaan ku darsado judeedin macalgada guriga aan ku isticmaalo waaye 3 qaando sokor ayaan ku darsaday walaalahayga qaaliga caanihii qandicii waxaan isticmaali doonaa insha Allah meeshan waxaa yaala 2 koob iyo bar 3 koob camal aan soo dhaweystay cusbo yaraan ku darsaday insha Allah hadeertaana si fiican ayaan u qasaa ila socda idinkama jari doono waxaan rabaa inaad ila aragtaan sida aan u qasaayo sababtoo mar walbo oo burkaaga si fiican aad u qasid wax walba ka samee hadaa rabtid wuxuu kugu soo baxaa maasha Allah heer sare uu kugu soo baxaa insha Allah annagana waa isla socon doonaa waad u jeedin waa igu yaraaday caano ku soo darsaday hal mar hadaa ku darsid waxa laga yaabaa inay bibi ka noqdaan burkii laakiin tartiib uu darso hadda waan ku sii cajimaa mise waa ku rifaaqa ninba siduu u yaqaano caanaha qandaca mise biyo qandac hadaad awoodid caano kaligood qasab ma ahan aniga hadda marna biyo iskaga qastaa hadda laakiin waxaa idinku tusay caano qandac waa u jeedaa Soomaa haddana waa ku soo daray sababtoo kiskisaan rabaa inaan u daro waan xashaa si fiican aan u xashaa insha Allah waxaan rabaa in uu noqdo haday cajiinkeena mise burkeena mid oo rootiga rooti aad soft u uu noqonaa insha Allah waan isla arki doonaa kaamiradan mid ka jaraayo hadda waad u jeedin weli caanihii waan ku dar sababtoo waan u yaryareysanaa ani qiyaasteedaan la socdaa sida saas ayaa lagaa rabaa adigana mar walba inaad qiyaastaada la socotid hadda waa bakeerigaas labadiis iyo barkiisaan ku darani maadaama oo burkeyga uu ahay 2 koob iyo bar laakiin ma ku dhahayo mar walbo adeeg kugu xiran tahay inaad ogaatid burkaaga siduu yahay bur adeegna wax ma fiicno sababtoo wax walba aad sameynaysid burka si fiican u xash haddii aad si fiican u xashid maasha Allah ku soo baxaa burkaada insha Allah markaas sidaan u xashay waxaan ku daray saliid ayaan korka uga daray saliida caadiga olive wax walba aad haysid waad ku darsan kartaa waxaan rabaa marka aniga in uu noqdo burkeyga mid soft oo weelkana iga dhegdhegin waa gacmahan waa ku reebanaa burkana aad oo kaaga caawinaa inuu noqdo bur maasha Allah hadda waa kana sidaan ku soo baxay insha Allah burkeeni waxaan soo daboolaa muddo 15 daqiiqo kadib aan isku soo laabaneynaa insha Allah waa kaamiradan ma dheereenayo hadda waad u jeedaa maasha Allah asxaabteena ila arka siduu u qamiiri fiiri bal burkeena hay korkiisana fiiri aad oo soft u noqdo is dhex gelinaa insha Allah haddana waxaan sameyneynaa hadde waan kuusaa waa diyaarinaa waad u jeedin kaamirada inay igu dheeraato ma rabo iga raali noqda 4 xabo camal aan idinka tusaa sidaan aan kuuskuusaa u jeedin Soomaa
meesha yarta aad dhiganaysidna haddaa rabta bur hoos marso, haddaa rabta saliid marso si uusan kaaga dhegin burka. meesha aniga hadda aan saaranayo waa meel saliid yar aan marsaday si fiican. waa gacanta biniaadanka islama eko insha allah, laakiin waxaa lagaa rabaa dee kuskus yaroo cabirkooda maasha allah inaad samaysatid, wuu kuu fududaana. burkina markuu soo qamiiro inaad isdhexgelisid masti waa waajib waaye, sababtoo gadaal haddana waxaan rabnaa inuu sidoo kale u qamiiro. waad ujeedaa waxaan soo qaatay sidaan aan fidinaa aniga, sidaas tartiibta asxaabteyda qaaliga maasha allah. hadda soo dhawaada asxaabta cusub, asxaabtii hore noola joogtayna insha allah idinkana asxaabtiina u sheergareeya, laygta commentigana waa ii dhiirigelin. wax alla waxaad jeceshiin insha allah waad noo iisoo sheegi kartaan. waa kanaasaana u sameeyey geesahana xoogaa waa aniga meeshaan mujeeda saasaa dheesaa maasha allah. sidaas wacanaa u sameeyey, waa soo diyaarsaday geedka foornadii. ani xaanshaan iska saaray oo loogu talagala foornada gubitaankana iga ilaalinays, laakiin saliid haddaad si fiican iyo bur aad u marisid maasha allah kaal aragkaagama dhegeyso. adi waxaan rabaa inaan idinka tuso 4 xabo mise 5 xabo camal inaan idinka tusaa rabaa insha allah, kadibna siduu kusoo baxa aan isla aragno. waad ujeedii sooma saana u laabay si fiican lee fiiriyo, waa saasaan usoo laabay mar labaad. haddana waa kan kadib dharag alay siinaysaaba wax mashaakil mala, fudud maasha allah. rootigan aad u fudud yahay insha allah, idinkana waad arki doontaan. waa kana labada geesna mar walba saas lee ka dheh, sababtoo rootiga afkiisa wuxuu kuu noqonaa af siman oo maasha allah kuu noqonaa. waa kana weelkiisa lay soo saaraa hadda 3 soo maahan 4 xabo camal aan jecelahay inaad si fiican aad uga bogataana rabaa insha allah, maadaama qofku uu yahay qof hadduu wax baraayo inuu si fiican cashirka u kala saara. inkastoo macalinka la dhahay 30% uu ku baraa 70 kale adi raadi insha allah. aniga waa dadaala walaalahayga inaan qanciya jecla maasha allah. soo dhawaada walaalahayga qaaliga, mar walbo farxadiina waa ii farxadeyda, ducadana waa xaggiina, dhiirigelintana insha allah. waa kana midkii 4aad saan ayuu kusoo baxay insha allah. waan soo dhamaystiraa, markaan soo dhameeya idin tusaa, wixii kalena waa isla arkeynaa oo harsan. hadda gabagabadii waay insha allah. waa kana 4tan xabo waa soo dhamaystiraa. waa kana 4tii hadeerta idinka tusay. kaameradana inay fogaato ma jecli aniga, mar walba waxyaalo waqtiga luminayo ma rabo, wax faa'iido leh inaan idinkana jeclahay. saan ayaan kusoo dhameeyey, ila arka walaalahayga qaaliga maasha allah. waan daboolaa muddo adiga 15 daqiiqo ayaan ka maqnaanaynaa insha allah. waan isku soo noqonaynaa, siduu kusoo baxayn waa arki doonaa. waa kana walaalahayga qaaliga sharafta badan leh, sidaan ayuu kusoo bax rootigeena maasha allah. siduu u kaca fiiri, horta rootiga waxaa la rabaa muddo markuu soo kaco asiga dhan wuu kala baxa, hodhow wuxuu noqonaa mid suuf suuf oo aad u jilcan oo noqona. laakiin hadda isla markii ukuntiaan korka ka marinaya aniga has dhibin waayo, buraashi wax dhan mubaraasani gacanteydaan qabtay dhagdhagan ku siiyey. ukuntii yareed hadaaya aan reebto shahrigii aan rabaa korka inaan ka mariyo, waad ujeediin sooma. ukuntii aan tartartiib u marinaa, mana rabo inaan waqtiga idinka qaade, waan soo dhamaystiraa. saasaan u mariyey, saasaan u mariyey, qancila isdhaa mar walba walaalaha tusi. waa kana diyaar su qurux u yahay mujeediin maasha allah. haddana foornadaa gelinaynaa, haddaa foornahaysana dabka waa ku dubi kartaa walaashii qaaliga, walaalkii qaaliga. mar walbo foornadii aan geliyey rootigeena 180 kor iyo hoos, siduu kusoo baxa cajiib maasha allah, adaaba yaabi doontid. bal ila fiiri rootigeeni sidaan quruxda badan leh. alaabaha aniga mar walbo idin sheegay dahabigaan jeclahay insha allah. siduu jileecu yahay fiiri, bal gacanta xitaa markaas isku dhahday bush waa mujeedaa. waa raali noqdo codkana hargaba ay haayo maalmahan, waa iska xaajisanaay insha allah. waa kana sidaasuu noqdo rootigeena insha allah. walaalihiina kale u sheer gareeya. hadda muuqaalkan iyo muuqaalka xigaa noo balan like-ta subscribe haddaad nagu cusubtahay soo dhawow, haddaa hore noola joogta sheer gareey insha allah. assalaamu calaykum. waad ujeediin maasha